waa waray Soomaalidii ayaga la isku mashaqay Soomaalidii waxaa isku mashaqay in ayaga isdulmiyaan adduunkii kale iyo horumarkiisii iyo dadkii wixii ay ku tartamayeen baa laga qaray iyagiiba hoostoodii gondahoodii bay ka shidan tahay hooyada ooynaysa calaacalaysa barooranaysa balanbalaysa aabaha wax dulminayo kan kale ku fiirsanayo sheekh daawanayo dulmiga oona ka hadlaynin masaajidkana safka hore ku tukanayo maxaa balaayo qooshan yaa Soomaaliya sida mayadan la moodo Soomaaliya sida maxay tahay dumarka dhibkaan aan dhamaanin oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayo war waxa waaye wax walba xal bay leeyihiin maxaa loo diiday in la xaliyo dhibaatooyinka qoysaska ka jira oo waliba qoysaska Soomaaliyeed gaarka ku ah adduunka kale waa kan horumaro system iyo nidaam iyo cadaalad sameystay maxaa anaga cadaalad noo diiday aawa diintanada aawa iimaankanagi maxaa noo diiday in dhaxdanada ay soo cadaalad sameeyno way isku dulminayna maxaa hooyooyinka loo dulminayaa hooyooyinka maxaa loo dulminayaa hooyo sooti loo naxariisan jiray hooyo sooti loo dhimrin jiray hooyo sooti loo damqan jiray hooyo sooti wanaageeda la xusi jiray hooyo sooti wax walba sax iyo khalad hooyo sooti mar walba lamboon ahayd maxaa nagu dhacay soo anagii dhaqan bedelanay soo anagii diintanada xataa inkirnay soo anagii diintii oo dhan iyo dhaqanka islaamka oo dhan aan ka dhignay salaado oo la tukado ama masaajid la galo oo xataa ilaahay og yahay in laga aqbalay in kale goorma quraanka naga uu sheegay in gabar Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ayadaba adduunkii la harjadayso oo la daala dhacayso oo la rafaadayso oo waliba tan qurbaha sii joogtana ugu sii daran tahay in la dulmiyo uu dulmiyo nin walaalkeed in adeerkeed oo Soomaali ah oo muslim la sheeganayo oo laa ilaaha illa Allah ku hayo in uu dulmi ula soo bareero ilmahaas yaryarka oo biri ka maalin cuqdadaas iyo dhibkaas ku koreena muxuu falayaa biri ka maalin ilmahaas nolol noocee ku noolaanaya biri ka maalin asna sidiisoo ma sameeyna sidiisoo asagana wax uma dulminayo uma dhibaateena because wuxuu arkayaa role modelkii uu ku dayan lahaa wanaagga iyo khayrka iyo horumarka uga dayan lahaa oo wax dulminayo dhibaateena xagu marka wanaagga ka keenay inuu ilaahay ku duumo ogi xagu ka keenaya soo aabaha soo lama dhihin waa hogaamiye waa qawaam soo lama dhihin ninka ragga soo ilaahay ma sharfin ma karaay muxuu karaamada isaga qaaday waay uu gabar miskiin oo daciif oo ilaahay ba miskiin ka dhigay waay uu la xifaaltamaya munanka raggiisa oo faciisa ninka ragga oo faciisa uu la xifaaltamo waay gabadha hadii qaldan tahay hadii saxan tahay waay uu la xifaaltamaya hooyo miskiin qorba joogta qorax joogta iyo tukala maxaa loola ficiltamaya warnimano maxaa qaldamay maxaa aqliga idinka qaaday maxaa isku cishan la adiin odaygii dhalinyaradii kii 20 sano jiray kii 50 jirka ahaa kii sheekh ahaa kitaabka xambaarsanaa iyo kii mas'uulka ahaa oo ummadda hogaaminay way isku wada caqli u noqoteen maxaa hal mowqif uga qaadateen oo ah in dumarka lagu daawado dulmiga ilaa hadda su'aashaas jawaabteeda ma helin dumarka sidoo kale way adinka dhexdiina aadan isugu raacsaneen ama ugu mideysneen in aad isu hiilisaan oo gabar maanta markay dhib soo gaaro aad la damqantaan oo la garab istaagtaan ileen waa isku dhibaato tihiin waa isku jilicsan baa tihiin oo isla jilicsantiin hooyooyin baa isla tii wax badan oo common ah baa idinka dhaxay maxaa dumarka dhexdooda isugu rooneen maxaa dumarka dhexdooda arimahan ragga iyagu way ka mideysan yihiin sheekhoodii iyo shariifkoodii sheedaankooda waa mid hal mowqif bayna ka taagan yihiin oo ah in dumarka la dulmiyo oo la dhibaateeyo halkaas mowqif bay ka qaateen way anaga dumar hadaan maxaanan anagiiba majority-ga bulshada anaga ah ugu badan maxaa anaga uriso ilaahay isugu kaysaaro oo isugu hiilinayno isugu damqanayno isugu garab istaagayno especially waliba xilliyada qaarkanaga ee dhibaataysan yihiin arkaysa gabar ooynaysa tu kale ooynteeda ku raaxaysanaysa ay dhacdaa inaga dhacda dumar hadana anaga isku rooneen
annaga cadow isku ah. ninkaas wax dulminayo oo ilmihiisa dayacayo oo ilmihiisa dhibaateynayo oo xaaskiisa hore la ficiltamayo oo leeyahay meesha far hadday dhaqaajo 5 baan dhaqaajinaa la ilaa ninka iyo naag isku awood maahan si kastaba ninkaas mid baa beri soo xareysanaysa maanta gabar buu dulminaya ka oysiinaya bariga bulshada keenaya waa la dulminaya mid kale baa la kaala gacalay soo dhawow leh oo soo xareysanaysa cause anaga dumar ahaan iskuma damqano haddii anaga isgarab istaagi lahayn mideysnaan lahayn isku hiilin lahayn ficiltanka aan ragga u qabno tusin lahayn oo dhihi lahayn waryaa shalay ma xasuustaa tii aad xumaysay kornaageed kabis ma dheer shalay taa xumaysay waa walashi hataa haddii wax laisku yahaan isku qabiil iyo isku waxba laisku yahayn haddaad tiraahdo gabar bay ahayd anna gabar Soomaaliyeed baa soo xumaysay soo dulmisay ama waa maqlay ama waa la ii sheegay aniga marka beri xaggee igeenaysaa ninkan caqligii iyo maangaabnimadii uu gabar Soomaali ah oo weliba macaan iyo qaraar soo dhexmaray uu la ficiltamo uu xumeeyey yuu wanaajina marka inama wanaajina tukal waxba uma sameynaa shalay meeshuu dhigay meel ka xun inuu ku geeyo moogay meel ka sokeyso ama ka fiican kuma geenay therefore hal midaan leeyahay maadaama aanan haysan system ama sharci anaga noo helinayo oo cadaalad noo sameynayo maadaama aanan haysan bulshadii Soomaaliyeedna nimankii u janjeeraan oo hadduu saxan yahay hadduu khaldan yahay iyaga la taageerayo waay anaga maantada la joogo waxaa waaye kuwa wax bartaa naga buuxo kuwa dhaqaale haystaa naga buuxo kuwa caqliyan u dhisan baa naga buuxo kuwa wanaagsan baa naga buuxo maxaa anaga intaan midoowno oo u midoowno cadowganaga aan isku garab siinayno ilaa ninka gabadha dulminayo oo la ficiltamayo waa haran ahwa sababta aan haranka ah albaabada ugu furayna u soo xareynayna maxay tahay soo xumeeyay gabar walaasheena oo soo dulmiyay oo soo dhibaateeyay ba anoo kale markuu yimaado malab isku keediga maxaan dhahaye midayada edab darneeda kaala soo xaro anaa ka fiican hadhowdiina waa barooranaya balanbalaya dumarow cadowgiina mataqaanaan cadowgiina u midooba nimanka noocaasa waa in loo midooba meel liska saara tan kale ragga waxaan leeyahay war dumarka baad u xoog badan tihiin ficiina horumar iyo wanaag iyo qurux iyo adduun bay ku talaabsanayaan adduun casriga la joogay ragga ficiina la tartama dumarkiina ku soo noqonina oo dalkiina hagaajiya oo cadowga iyo xaasidka dalka ka buuxo oo ka adeeganayo iska bixiya oo heshiiya oo siyaasadii ku heshiiya oo hogaankii ku heshiiya oo qawaamnimadii Ilaahay idin siiyey sidii aad uga soo bixi lahaydeen iyo waajibaadka Ilaahay saaray ka fikira oo ka hadlayna dumar hoostooda iyo naag shalay aad xalaal ku guursatay ceebteedan soo saaray iyo ishaga wuxuu Ilaahay shalay kuu baneeyay inaad maanta ka dhigtid wax ilma Ilaahay dhiigaada dhacankaada ka beer inaad cuqdad iyo rafad ku korisa maahan qawaamnimada qawaamnimada waxay tahay in mas'uuliyadaada laga arkaa hatta hadaa aaba tahay aabanimada inaad ka soo bixi kartaa shalay haddii gabadhan aad xumayso ku nacdo ku tuurtay xalaal calayg inta tiraahdo magaalada gal oo isweydii iswareyso oo waxaad tiraahdaa maxaa leegu nacay maxay gabadha ila dagaashay maxaa iga khaldan maxaan haleeyay iswareyso bal oo adiga dib isugu noqo isxisaabi kadibna wixii ka xumaada hagaaji qurxi wixii ku wanaagsan tahayna sii wanaaji oo facaada iyo raggii adiga aad ii sheeg la xifaaltami la raadso dumarka ku soo noqonin billahi tawfiiq